السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka ugu horeysa Ramadaan Kariim dhammaan muslimiinta meel kasta ay ku kala sugan yihiin. Ilaahay waxaan ka baryaynaa Ramadaanteeda inagoo caafimaad qabna inuu Ilaahay nagu gaarsiiyo insha Allah ta'ala intii nimadeena Ilaahay u naxariisto. Muddo video ma soo gelin maanta waxaan jeclaystaa barnaamij yar oo kooban oo cilmiga la wadaago kaasoo ah qaaradaha adduunka ku noolahay sideeba ama intee saacadood baa laga kala soomay Ramadaanta سالان أفريقيا أمريكا آسيا يوروب marka insha Allah ta'ala macluumaadka armadoon in lagu daago fadlan igu dhiirigelina markasta wax soo geliyo inkastoo aan waqtigu ugu yar yahay laakiin insha Allah ta'ala waan jeclaa markasta inaan waxaan wadaago wixii ka dhex guuxaya ama waxaan arko adiguna igu caawin inaad subscribe channelka saarto asxaabtana u sii wadaagto insha Allah waxaad ka faa'iidaystay sida wada arkaysaan saacado way kala duwan yihiin waqtigu run ahaantii waqti anigu tusaale imika waqti halkan ku noolaa kale Germany waxaanu mararka qaar subaxii waxaa la suxuurta waxaa la cunaa waan ka wadaa adigu saddexda subaxnimo ugu dambeyn iyadoo mararka qaar iyadoo afarta gaarin baad suxuuranaysaa waqtigana kula hadlayo kale waxaan afuray 8 iyo 36 daqiiqo waad arkaysaa yani maalin ka dambaysa waqtigu afurku sii fogaanaya birtoole insha Allah waxaan afuray ilaa 40 48 ilaa 9 ka gaarisa adigu waxba hadal ku daa 3 subaxnimo ilaa 9 habeenimo saalaan Afrika oo kale waad arkaysaa meelaha qaar 14 saacadood meelaha qaar 20 saacadood baa laga soomaa insha Allah ta'ala halkan xogta waad arkaysaa ayaan igu soo diyaariyay waan jeclaa markasta inaan wax muhiim ah la wadaago oo cilmiya ama aqoon ku saabsan adna waxa markasta ka baraya ama ka codsanaya inaad channelka subscribe tiraadid codsigaas markasta waan jeclaa ku xasuusiyo haddaad asxaabteedii aad igu xidhan aad ka mid tahayna fadlan asxaabtaada kale sii wadaag videoga soo share garay ninkastoo videoga aan soo sii dheeraa laakiin waan jeclaa markasta inaan wax xasuusiyo dhawaatood ma santiin. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.